kusoo dhawaada barnaamijkeena xogta caalamka oo aad ku daawan doontaan warbixinadii ugu dambeeyay dunida haddii rabbi laga helo qodobada aynu barnaamijkeena idinkuga helno maanta waxaa ka mid noqonaya ammaanka madaxtooyada Soomaaliya oo si weyn loo adkeeyay sababtu maxay tahay waxaad sidoo kale muuqaalkan aad ku daawan doontaan go'aankoosadka koonfurta Yemen waxay ku dhawaaqeen inay dhisayaan ismaamul taa oo meesha ka saarayso heshiiskii 2019 ay la galeen xukuumadda caalamku aqoonsan yahay waxaad sidoo kale aad ku daawan doontaan barnaamijkeena wasiirada arrimaha dibadda Jarmalka Faransiiska Talyaaniga oo ay weheliyaan diblomaasiyiinta ugu sareysa midowga Yurub waxay soo saareen baaq wadajir ah oo ku aadan xabad joojin Liibiya ka hirgasha sidoo kale daawadayaal waxaan muuqaalkan idinku soo gudbin doonaa shacabka Yahuudda oo dalbaday in cadaalada la horgeeyo ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu shacabka Yahuudda arintaasi ka banaan baxay qodobada kale oo idinku soo gudbin doono muuqaalkan waxaa ka mid noqonaya ra'iisul wasaaraha Britain Boris Johnson waxaa lagu wadaa in maalmaha soo aadan uu ka howlgalo xafiiskiisa iyadoo la hadalhayo in uu geeriyooday madaxweynihii Kuuriyada Waqooyi ee Kim Jong Un haddaba haddii arintaasi ay dhabtahay yuu noqon karaa cid bedelaysa Kim Jong Un warbixin ayaynu barnaamijkan idinku soo gudbin doonaa qodobadaasi kuwa kale ayaad muuqaalkeena ku daawan doontaan haddii aad nagu cusub tahay channelkeena subscribe saar si aad u hesho mar walba wararkii ugu dambeeyay ee dunida marka la kula wacan saaxiibayaal waxaanu gudagali doonaa faahfaahinta qodobadii aad maqasheen waxaanu ku bilaabaynaa daawadayaal ammaanka madaxtooyada filla Soomaaliya oo si weyn loo adkeeyay intaynu gudagelin haddii aad nagu cusub tahay daawaday fadlan adigoo mahadsan channelkeena subscribe saar si aad u hesho xogihii ugu dambeeyay ee caalamka ammaanka madaxtooyada filla Soomaaliya ayaa si aad ah loo adkeeyay waxaana la soo kordhiyay ciidamadii koofida casta ee ilaalada gaarka ka ahayd madaxtooyada waxa ujeedka lagu sheegay in ay jirto cabsi la xiriirta kacdoon ay dhigaan shacabka ku dhaqan magaalada tan caasimada Muqdisho ciidamo iyo gaadiid dagaal ayaa la sheegayaa in lagu arkayo madaxtooyada filla Soomaaliya taasi oo tilmaamaysa cabsida ku aadan feejignaanta ay qabto xukuumadda uu hogaamiyo madaxweyne Farmaajo ee la xiriirta in aanay saameyn ku yeelan kacdoonka shacabka laga cabsi qabo inay dhigaan warar hoosaad ah oo aynu helnay ayaa waxay sheegayaan in madaxweyne Farmaajo uu doonayo sidii arintaas aysan u saameyn lahayn shacabka kacdoonka ka dhigayo banaanbaxyada iyo bandowga lagu soo rogay qaar ka mid ah hogaamiyaasha mucaaradka ayaa sheegaya in dibadbaxyada rabshadaha wata ay bilow u yihiin kacdoon shacabka oo lagu doonayo in meesha laga saaro xukuumadda Farmaajo geesta kale tan go'aankoosadka koonfurta Yemen ayaa waxay ku dhawaaqeen inay dhisanayaan ismaamul arintaasi oo xadgudub ku ah heshiiskii nabadeed oo ay bishii November sanadkii 2019 ay la saxiixdeen xukuumadda caalamku aqoonsan yahay golaha ku-meel gaarka ee koonfurta fadhigooduna yahay magaalada Cadan ayaa sidoo kale waxa ay soo rogeen iyaguna xaalad degdeg ah waxaana ay sheegeen in uu ismaamulku doonayo magaalada Cadan iyo gobolada koonfurta ee dalka golaha oo magaciisa lagu soo gaabiyay STC ayaa waxa taageero uu ka helaya dalka Imaaraadka Carabta xukuumadda Sacuudi Carabiya taageeridii ay ka wado gobolka ayaa la sheegay iyaduna in ay saameyn weyn ay ka dhalin karto dhaqdhaqaaqyada gobolka ka soconaya ku dhawaaqista arintan ayuu sheegay wasiirka arrimaha gudaha in ay meesha ka saarayso heshiisyadii Riyaad lagu saxiixday sidoo kale tan kooxahan inay doonayaan in mar kale dagaal sokeeye Yemen ay gasho isbahaysiga Sacuudiga oo hogaamiye ayaa qaaday faragelin military oo ku taageerayo xukuumadda Yemen sanadkii 2015 waagaasi oo ay falaagada Xuutiyiintu qabsadeen magaalada madaxda Sanca Imaaraadka Carabta waxa uu qayb ka yahay oo uu ku jira isbahaysiga laakiin waxa uu hadda taageerayaa go'aankoosadka koonfurta bishii Agoosto sanadkii hore ayay golaha STC waxa uu qabsaday magaalada madaxdii ku-meelgaadhka ahayd ee dawladda ee Cadan waxa uu ku eedeeyay xukuumadda maamul xumo golaha ku-meelgaadhka ah ee koonfurta STC loo soo gaabiyay waxa uu bishii May sanadkii 2017 magaalada labaad ee dalka ugu weyn ee Cadan uu ka asaasay siyaasiyiin oo hogaamiyayaal qabiil iyo saraakiil military ay ku jiraan dulucda kale tan wasiirada arrimaha dibadda Jarmalka Faransiiska iyo Talyaaniga oo ay weheliyaan diblomaasiyiinta ugu sareysa midowga Yurub waxa ay soo saareen baaqi wadajir ah oo ku aadan xabad joojinta Liibiya iyagoo ku booriyay kooxaha ku dagaalamaya waqooyiga Afrika in ay dib u bilaabaan wadahadalada nabadeed waxaynu doonaynaa in aynu codkeena ku mideyno xogayaha guud ee Jumciyadda Qurumaha ka dhaxaysa qaramada midoobay Antonio Guterres iyo ku-xigeenkiisa wakiilka gaarka ah ee Liibiya Stephen Torko Williams ee ku aadan baaqyada
xabad joojinta ah ee Liibiya ayay ku yiraahdeen bayaan ay soo saareen wasiirada arrimaha dibadda ee dalalkaasi, waxayna ugu baaqeen howlwadeenada Liibiya inay dhiirigeliyaan wadahadalada oo ay ka qayb qaataan sidii loo bilaabi lahaa mar kale wadahadalada la xiriira xabad joojinta dhabta ah ee laga hirgelinayo gobolka. Liibiya oo hodanka ku ah saliidda ayaa qalalaasa gashay sanadkii 2011 markii hogaamiyaha muddada dheer talada dalkaasi haya ee Muammar Gaddafi lagu dilay kacdoon oo ay taageerayaan xogaga NATO. bishii Abriil sanadkii 2019 General Khalifa Haftar waxa uu bilaabay olole military oo uu kula wareegayo gacan ku haynta Tripoli, laakiin weerarka waxaa inta badan joojiyay ciidamada daacadda u ah dowladda caalamka oo aqoonsan yahay ee Liibiya. geesta kale tan haddaan eegno shacabka Yahuudda waxay dalbadeen in cadaaladda la horgeeyo ra'iisul wasaaraha Yahuudda Benjamin Netanyahu. dhowr kun oo reer Israa'iil ah ayaa lagu waramayaa inay mudaharaado ee dhigeen kuwaasi oo ay inta badan kaga soo horjeedaan heshiiskii midnimada ee dowladda oo meesha ka saarayo in ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu inuu isku diyaariyo maxkamadda in la soo taago. dibadbaxayaasha ayaa ka soo horjeestay Netanyahu inuu sii hayo talada ra'iisul wasaaraha dalkaasi. dibadbaxayaashu waxay sidoo kale sheegayaan in heshiiskan midnimada ee dowladda Netanyahu ay siinayso magacaabista garsoorayaasha mas'uuliyiinta sharciga, taasi oo burinaysa dimuqraadiyadda. waxaa sidoo kale loo soo jeediyay Netanyahu inuu doonayo inuu meesha ka saaro eedaha musuqmaasuqa ee loo soo jeediyay. dibadbaxyadu waxa ay inta badan si weyn ay kaga soo horjeedaan mar kale Netanyahu in dowlad uu soo dhiso, sidoo kale tan in sharciga uu soo hor istaago ayay doonayaan. ra'iisul wasaaraha Britain Boris Johnson waxa lagu wadaa in maalmaha soo aadan xafiiskiisa uu ka howlgalo. ra'iisul wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa la shaaciyay in uu maalinta Isniinta ah oo biri ah uu qorsheynayo in uu ku soo laabtay shaqadiisa. muddo 2 toddobaad ah laga joogo ayay ahayd markii ra'iisul wasaaraha Britain uu cisbitaalka ku yaala London uu ka baxay, halkaasi uu mar cudurka COVID-19 u galay qaybta xaaladda degdega ah, waxaana uu saameynta xanuunkan uga soo reestay hoygiisa, halkaasi oo la sheegayo in qadka taleefanka uu kula hadlay boqorada dalkaasi Elizabeth iyo golihiisa wasiirada xubno ka mid ah, sidoo kale madaxweynaha dalka Mareykanka Donald J. Trump. Mr. Johnson ayaa xafiiska ku soo laaban doono xilli uu wajahayo dhaleeceeno ku aadan qaabka uu ula tacaalay cudurka COVID-19. geesta kaleeto waxaa maalmihii ugu dambeeyay soo baxayay warar sheegaya in madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un uu geeriyooday. haddaba haddii wararkaasi ay xaqiiqo yihiin iyo noqon karaa cidda kursiga isagoo uu baneeyay buuxin karta. Kim Yong Jong waa 35 sano jir, waxay la dhalatay Kim Jong Un, mana ahan qof sidaasi u dhib badan. yaraanteedii waxa ay jecleed ceejinta bisadaha masaakiinta ah. qofka ay dilayso waxa ay xiiseysaa inay daawato isaga oo si tartiib ah u dhimanayo oo nafta aysan hal mar dhaafin. waxay tababar sare ku haysataa in haashka sigaarka meel sare oo fog ay ka soo tuurto kadibna ay isha ka geliso qofka ka agdhow. hubka ay badanaa wadato waa biinsado iyo weliba maqas si ay carabka iyo faraha uga gurto dadka ku dhaca qaladaadka yaryar. waxa ay shahaado sare ka haysataa sida caruurta loola dhaqmo sawaariikhda nukleerka. waxay ula mid yihiin wax aad u fudud, taasi oo inta badan ku dhiirigelisa in ay ku dhiirato rumuudka laga rido nukleerka, taasi oo inta badan ku dhiirigelisa hiritaanka rumuudka laga rido nukleerka. waxaa la sheegaa in iyadu ay dishay walaalkeed maadaama uu ku dhacay xanuunka COVID-19, taa oo raacaysa sharciga dalkaasi oo qaba in la dilo qofkii laga helo cudurkan, waana qofka dhaxlaysa madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi haddii ay sax noqoto in uu dhintay Master Kim Jong Un. guud ahaanna intaa ayaan jecelnahay saaxiibayaal inaynu kusoo gabagabeeno muuqaalkeena oo aynu kaga hadlaynay barnaamijka xogta caalamka oo aynu idinkugu soo gudbinay wararka ugu waaweyn ee dunida. haddii aad nagu cusub tahay janaalkeena subscribe saar si aad mar walba u hesho xogo intaan kasii muhiimsan. nabadgelyo.
يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان شو مغيب بلا ومضنا معبودك أمان يا رمضان